kulanti waxaan u wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka degdega ah ee Bisla TV. wararka laga helayo degmada Xudur ee xarunta gobolka Boqol ayaa sheegaya in halkaasi maanta ay ku dhacday diyaarad ay leeyihiin ciidamada militariga Itoobiya sida ay xaqiijiyeen ilo dhanka ammaanka ah. diyaarad militari oo Itoobiya ay leedahay oo nooceedu yahay kuwa sida qumaatiga u kaca ee loo yaqaan helicopterka ayaa ku soo dhacday garoonka diyaaradaha magaalada Xudur. diyaaradda soo dhacday ayaa waxa la xaqiijiyay inay tahay sida ciidamada militariga Itoobiya ay qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee loo yaqaan AMISOM. saraakiisha ammaanka ayaa dhankooda sheegay inaysan jirin wax khasaare ah oo ka dhashay shilka diyaaradda marka laga reebo in diyaaradda uu burbur kooban soo gaaray. diyaaradda soo dhacday ayaa waxaa la dhigay qayb ka mid ah garoonka diyaaradaha ee magaalada Xudur waxaana lagu bilaabay dib u habeen. garoonka ay diyaaradda ku soo dhacday ee magaalada Xudur ayaa hadda dib u bilaabay shaqadiisa sida ay sheegeen shaqaalaha garoonka ka shaqeeya. saraakiisha ciidanka Itoobiya ma sheegin sababta keentay burburka diyaaradda ka soo gaaray magaalada Xudur, mana jiro war ka soo baxay maamulka koonfur galbeed oo looga hadlay arrintan. bismillaahi raxmaani raxiim. mudane ra'iisul wasaare, xubnaha golaha wasiirada ee aan guddiga ku wada jiro, la taliyaha xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo saxaafadda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed halka naga daawanaysa, ciid mubaarak. aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa ra'iisul wasaare waqtigaaga. sida ay wasiirada saaxiibadayda sheegeen, shaqadii naloo idmaday ee ahayd sida aan uga shaqayn lahayn dib u heshiisiinta doorashada ee gobolka Gado iyo guud ahaan Jubbaland. waxaan rabnaa maanta halkan inaan kugula wadaagno macluumaadkii ama reportkii aanu ka soo qaadnay shaqadii ama aanu ka diyaarinay shaqadii aanu soo qabanay iyo sida uu wasiir Caadlaba sheegay sida ay u dhacday shaqadii aanu soo qabanay. iyadoo sida aan xusnayba reportka ama macluumaadka aanu kula wadaagi doono faahfaahintiisa, haddana waxaan rabnaa halkan inaanu la wadaagno ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo madaxdoodaba tala bixinta ka soo baxday shaqadii aanu soo qabanay. bismillaahi raxmaani raxiim. tala soo jeedin guddiga dib u heshiisiinta gobolka Gado kadib u kuurgelis xaaladda gobolka gaar ahaan magaalada Garbaharey iyo Kismaayo oo aanu markii dambe ku dambeynay iyo wada tashiyo ballaaran oo aanu la sameynay qaybaha bulshada, mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiintaba. waxaynu ku tala bixinaynaa qodobada soo socda in si dhaqso ah loo fuliyo. 1. in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu soo saaro wareegto uu ku amrayo dhammaan ciddii ay qusayso gaar ahaan laanta socdaalka, hay'adda duulista hawada iyo hay'adda nabad sugidda qaranka ee ka howlgara garoomada diyaaradaha ee dalka, gaar ahaan kuwa ka howlgara garoonka Aadan Cadde iyo kan Kismaayo, in aan muwaadin aan maxkamadi dambi ku soo oogin aan sabab aragti siyaasadeed darteed loo xanibi karin socdaalkiisa guud ahaan dalka, gaar ahaanna in la fasaxo diyaaradaha iyo muwaadiniinta u kala safraya Muqdisho Garbaharey, Kismaayo Garbaharey iyo Garbaharey Kismaayo. 2. in isla wareegtadaas uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ku soo saaro in si waafaqsan heshiiskii 27 May 2021 aysan ciidamada kala duwan wax faragelin ah ku samayn karin siyaasadda iyo amniga doorashada dalka marka laga reebo hay'adaha amniga ee loo xil saaray fulinta qorshaha amniga doorashada. amniga doorashada Garbaharey waxaa loo marayaa si waafaqsan soo jeedinta Baydhabo iyo heshiiskii 27 May 2021 ee golaha wada tashiga qaranka. 3. in guddiga doorashada Jubbaland seat uu soo gudbiyo jadwalka goorta ay tegayaan Garbaharey iyo waqtiga la bilaabayo doorashada kuraasta 16 ah. waxaan kaloo soo jeedinaynaa in la tixgeliyo codsigii bulshada Garbaharey ee ahaa in lagu bilaabo doorashada magaalada Garbaharey. 4. in ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ee ku sugan aaga Garbaharey ay xoojiyaan amniga guud ee degmada si looga ilaaliyo in argagixisadu soo fargeliso habsami u socodka qabsoomidda doorashada, habsami u socodka amniga doorashada Garbaharey. 5. in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo golaha wada tashiga qaranka ay si joogto ah uga wada tashadaan xaaladda amni iyo siyaasadeed ee qabsoomidda doorashada gobolka
si loo hubiyo habsami u socodka doorashada iyo hirgelinta dhammaan heshiisyadii fududaynaya xasiloonida iyo nabadda doorashada kuraasta Garbaharey. 6 ugu dambeyntii waxaan soo jeedinaynaa in magaalada Garbaharey laga hirgeliyo mashaariic horumarineed oo degdeg ah si ay qayb uga qaadato mashaariicdaasi soo kabashada kalsoonida bulshada ee dhanka dowladnimada. mashaariicda horutaminta leh waxaa ka mid ah 1 in la hagaajiyo biyaha magaalada Garbaharey. 2 in la dhiso garoonka kubadda cagta ee Garbaharey. 3 in la dhiso suuq dadka ka dhaxeeya. 4 in la hagaajiyo jidadka magaalada dhexmara. 5 in meel ku habboon laga hirgeliyo garoonka diyaaradaha. dhammaad mudan ra'iisul wasaare intaas waxa weeye talooyinka aanu ku talinayno u baahan in si dhaqso ah loo hirgeliyo haddii la haydmo si ay dhamaystir ugu noqoto shaqadii quruxda badnayd aanu soo qabanay. waxaan kaloo rabaa mudan ra'iisul wasaare inaan halkan la wadaago ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in safarkayagaas aanu ku tagnay magaalada Garbaharey iyo Kismaayo ay u guul ahaa oo runtii dadkuna ay si diyaarsan oo wanaagsan oo Soomaalinimo leh ay u soo dhaweeyeen arintan u soconay oo ahayd sidii si habsami loo hirgelin lahaa doorashada kuraasta taala magaalada Garbaharey iyo in gobolka dhan laga helo jawi nabdeed oo doorashada ku dhacdo. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. mudan ra'iisul wasaare mudan ayaal salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib mudan ra'iisul wasaare waxaa farxad noo ah maanta inaan halkaan kugula kulanno annagoo ah guddigii aada magacowday oo aada u xil saaratay inay ka soo shaqeeyaan arrimaha gedo gaar ahaan Garbaharey iyo qaabkii doorashadu uga dhici lahayd iyo xaaladaheeda. aad iyo aadaan kaaga mahad celinaynaa hawsha aada noo idmatay oo aada maaragtay noo xil saartay oo aada ku mahadsan tahay. intaas kadib haddaan usoo laabto arrintii socodkeena iyo shaqada waxaan rabaa inaan ku bilaabo mahadcelin aan u mahad celinayo dadka ku nool gobolka Gedo gaar ahaan magaalada Garbaharey. sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadkii aan ugu tagnay magaalada Kismaayo oo ay ugu horeysa madaxda meesha joogtay oo maaragtay madaxweyne ku-xigeenka uu joogay iyo golihii wasiirada iyo intii aan aragnay dhammaantood iyo bulshada qaybaheeda kala duwan salaadiinta iyo intii aan aragnay oo dhanba oo xaqiiqatan si aad iyo aad u qiimo badan dadnimo leh sharaf leh noo soo dhaweeyey noolana shaqeeyey wixii aan wadnayna naga aqbalay iyo barnaamijka aan ula tagna. barnaamijkaasoo ujeedadiisu ay ahayd oo la wada ogyahay siday uga qabsoomi lahaaday doorashada loo ballansan yahay waqti dhow magaalada Garbaharey oo ka mid ahayd goobihii loo asteeyey in ay ka dhacaan doorashooyinku. markii aan halkaas aan tagnay waxaan joognay muddo 4 maalmood ah. waxaan la kulanay bulshada qaybaheeda kala duwan si ugaaska iyo siyaasiyiinta iyo cid kastaba. waxaan marka rabnaa galabta inaan halkan kuugu soo gudbino gabagabadii markii aan hawsha soo gabagabeynay annagoo markaan ka soo baxnay Garbahareyna Kismaayo soo marnay oo sidaas oo kaleento uga soo aruurinay xogihii sida adiga dib u heshiisiin ay uga dhici lahayd guud ahaan Jubbaland ama gobolka Gedo iyo sida hadda doorashada ay u dhici lahayd labadaba wixii aan kala soo kulannay ayaan waxaan rabnaa galabta halkan inaan kuugu soo gudbino. horta waxaan kuugu bishaaraynaynaa inaan kala soo kulanay guul in arrimihii anaga aan ula tagnay dhammaantood banalan ka aqbalay in la dhihi karo in teera badan hawsha waa soo gabagabowday oo ay ka dhiman tahay in yar oo adiga iyo madaxweyne Axmed Madoobe in aad maaragtay aad dhamaystirtiin u baahan. aad iyo aadan ugu faraxsannahay in xaaladii ay noo soo dhamaatay galabtana anagoo guul ku fadhino oo reportkii aan ka soo saarnay galabta aan rabno halkan inaan kuula wareejino mudan ra'iisul wasaare. bismillaahi raxmaani raxiim. mudan ra'iisul wasaare iyo tiimka guddiga aan ku wada jirnay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacda salaam mudan ra'iisul wasaare sida warbixinta uu ku sheegay wasiirka muddadii aan ku sugnayn magaalooyinka Garbaharey iyo Kismaayo si aan u gudano hawshii naloo igmaday warbixintii aan soo aruurinay waxaan ku soo koobnay report aan ku soo saarnay reportkaas oo ka kooban horudhac ujeedada ama mandate-ka guddiga
shaqada aan soo qabanay iyo hanaanka u marnay xaaladda ka jirta gobolka Geda gaar ahaan Garbaharre iyo magaalada Kismaayo waxaan ku soo ganaanudnay recommendation ama talo soo jeedin ugu yaraan 25 qof ayaa ku dhintay roob mahiigaan oo ka daayay gobolka bartamaha dalka Shiinaha kaasoo sababay dhulgo iyo daadad iyadoo dhulgo uu qayb ka mid ah liqay nidaamka tareenka dhulka hoostiisa mara qiyaastii 200 oo kun oo dadka deegaanka ayaa laga daadgureeyay ilaa Arbacada iyadoo askartu ay hogaaminayeen dadaalada samata bixinta ee Shingawi oo ah magaalo ay ku nool yihiin in ka badan 10 milyan oo qof halkaasoo maalmo roob ah ay buuxdhaafiyeen jidadka iyo tareenada dhulka hoostiisa mara sida ay sheegeen saraakiisha dowladda hoose.